waxaa maalmihii dambe si weyn u xoogaystay hadalhayn ku saabsan abka Sweetcoin, kaasoo Soomaali badan ay ka daba dhaceen. baraha bulshada ayaa aad looga dareemay xiisaynta barnaamijkan oo lacag abaalmarin ah laga helo marka socod la sameeyo. dad badan ayaa sida muuqata raadinayay xog ku saabsan abkan oo aan ahayn mid cusub balse baraha bulshada Soomaalida aad loogu danaynayo. waa barnaamij app ah oo ku shaqeeya taleefanada gacanta ee casriga ah ee loo yaqaan smartphones. waxa aadna si lacag la'aan ah ugu soo degsan kartaa suuqyada dijitaalka ah ee Android, Windows iyo iOS. sanadii 2016 ayaa markii ugu horeysay la aasaasay barnaamijkan, saldhigiisuna waa magaalada London ee dalkaasi Britain. abkan waxay ujeedadiisu tahay inuu xisaabiyo inta tallaabo aad qaado marka aad socoto ama ordayso. mar walba tirada socodkaaga ayaad ku helaysaa lacag abaalmarina. jimicsiga uu ka mid yahay socodka ee lagu dhimo miisaanka way adag tahay in la joogteeyo, gaar ahaan marka uusan lahayn wax kugu dhiirigelinaya, balse haddii aad abaalmarin ku helayso waxaa laga yaabaa inuu kuu sahlanaado. sida iska cad, Sweetcoin wuxuu leeyahay laba faa'iido oo qof walba u muuqan karta. midda koowaad waa in qofka barnaamijkan isticmaala uu sare u qaadayo caafimaadkiisa maadaama uu helayo jimicsi waxtar u leh jirkiisa. tan labaadna waa in laga helayo lacag mar walba ku xiran dadaalkaaga intuu gaarsiisan yahay. waa hubaal in labadan arrimood ay sabab u yihiin tirada dadka sii badanaya ee soo degsanaya abkan oo hadda gaaraya ilaa iyo 100 milyan sida lagu sheegay bogga internetka ee Sweetcoin. Sweetcoin kama duwana barnaamijyada noociisa ah ee kaydiya xogta qaaska ah ee dadka macaamiisha u noqda. inta badanna walaac ayaa laga muujiyaa arrintaasi. bogga barnaamijkan ayaa si toos ah u caddaynaya in qaybo ka tirsan xogtaada ay qaadanayaan, sida mararka qaar ay kula soo xiriiraan shakhsi ahaan ama ujeedooyin siloon ay u adeegsan karaan. haddaba su'aasha ugu muhiimsan ee ay dadka isweydiinayaan ayaa waxay tahay, lacag caddaan ah ma laga samayn karaa Sweetcoin? shaki kuma jira in Sweetcoin uu yahay ab si sax ah u shaqeeya oo aan dadka lagu marin habaabinayn. barnaamijkan markaad isticmaalaysa wuxuu kunkii tallaabo oo kasta ku xisaabinayaa $0.95 oo ah lacagta gaarka u ah ee loo yaqaan Sweetcoin. marka ay lacagta kuu gaarto 10 coin iyo wax ka badan ayaad isticmaali kartaa adigoo ku iibsanaya qalab iyo adeegyo kale. ilaa hadda lacagta Sweetcoin ma noqon karto lacag caddaan ah, balse waxa ay ka mid tahay lacagaha dhinaca internetka loogu adeegto. suuqyada online-ka ayaad ka dukaamaysan kartaa adigoo isticmaalaya lacagta Sweetcoin-ka kugu jirta akoonkaaga. meelaha aad u adeegsan karto waxaa ka mid ah Amazon, ama waxaad ku heli kartaa kaararka wax lagu iibsado ee PayPal-ka, laakiin lacagta kugu jirta akoonka Sweetcoin kuma xabili kartid akoonka bangigaaga.